kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idii hayana waxaa kamid ah Roman Abramovich ayaa xoojinaya dalabkiisa Haaland. Mbappe ayaa ku farxay tababarka koowaad ee uu ku qaatay Brighton. Kylian Mbappe ayaa fariin qaas ah u diray Marcus Rashford. Rodrigo de Paul ayaa ku biiray kooxda Atletico Madrid. Manuel Locatelli ayaa la xiriirinaya Juventus. Intaas waxay qodobadii warkaatana ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan. Roman Abramovich ayaa xoojinaya dalabkiisa Haaland. 20 jirkan weerarka ka ciyaara ayaa la rajeynayaa inay codsadaan dhowr kamid ah kooxaha ugu waaweyn Yurub xagaagan, iyadoo majalada Sports Ismail ay shaaca ka qaaday bishii Maarso in Blues ay kamid tahay 3 koox oo reer Yurub ah oo xiisaanaya weeraryahanka iyadoo ay la socdaan Manchester City iyo Real Madrid. Haaland oo dhaliyay 41 gool 41 kulan oo u ciyaaray xilli ciyaareedkii hore ee kooxda Borussia Dortmund. Abramovich ayaa sii daayay lacagta ay Chelsea kula soo wareegayso Haaland xagaagan, laakiin wuxuu u baahan doonaa inuu iska diro qaar kamid ah xidigaha weerarka ka ciyaara. Xidigaha u muuqda inay kooxda ka tagaan ayaa waxaa kamid ah Hudson-Odoi, Tammy Abraham iyo Hakim Ziyech garoonka Stamford Bridge. Mbappe ayaa ku farxay tababarka koowaad oo ku qaatay Brighton. Warbixintaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. xidiga reer Zambia Mbappe ayaa wacad ku maraya inuu sii wadi doono bacsiga riyadiisa kadib markii uu tababare la qaatay markii ugu horeysay kooxda cusub ee Brighton. 23 jirkan khadka dhexe ka ciyaaraya u dhaqaaqaya kooxda ka ciyaarta Premier League isagoo ka soo dhaqaaqay Salzburg, wuxuuna doonaya saxiixii ugu horeeyay tababare Graham Potter daaqadan uu kadib markii uu ogolaaday qandaraaskiisa 4 sano ah ka hor ololaha Premier League 2021-2022. Mbappe ayaa wacdara ku maray inuu sii wadi doono bacsiga riyadiisa, wuxuuna diyaar u yahay ciyaareed Premier League inuu bilowdo kadib markii tababarkiisii ugu horeeyay Brighton. Kylian Mbappe ayaa fariin qaas ah u diray Marcus Rashford. Warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. Kylian Mbappe ayaa lagu soo waramayaa inuu u diray Marcus Rashford fariin gaar ah oo dhiirigelin ah kadib qalbi jabkii Euro 2020. Labadan weeraryahan ee daayarta ah labadoodaba waxay la dhibaatoodeen koobka, iyadoo Mbappe uu seegay rigooradii ugu muhiimsaneed iyadoo xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ee Faransa ay si lama filaan ah ugu soo baxeen Switzerland wareegii 16. Rashford ayaa kamid ahaa 3 xidig oo oo seegay kulankii ay guuldarada ka soo gaartay Italy finalka, taasoo qalbi jab ah xidiga Manchester United. Laakiin xidiga Paris Saint-Germain ayaa kamid ahaa kuwii ugu horeeyay ee xiriir la sameeya sida laga soo xigtay The Athletic. Rodrigo de Paul ayaa ku biiray kooxda Atletico Madrid. De Paul oo 27 jir ah qaybna ka ah xulkiisa Argentina ee ku guuleystay Copa America ayaa ka ciyaari doona Spain markii labaad xirfadiisa isagoo la joogay Valencia intii u dhaceysay 2014 ilaa 2016. Warbaahinta Isbaanishka ayaa soo warisay in qiimaha lagu kala iibsanayo kooxda ka dhisan Serie A ay ku dhawaada 35 milyan oo gani. Ciyaaryahanka De Paul ayaa yiri aad ayaan u faraxsanahay waxaan aadayaa kooxda haysata horyaalka La Liga, ayuu yiri De Paul. Waxaan ogahay mas'uuliyadda ay midaan leedahay, waa talaabada aad u xirfadeeda kubadda cagta, ayuu De Paul ku yiri hadal uu soo saaray. Athletic ayaa ku sifeysay inuu yahay qadka dhexe awoodda u leh kaasoo ku qanacsan inuu ku soo biiro weerarka isla markaana awoodda u leh inuu dhaliyo goolal isla markaana u ciyaaro asxaabtiisa. Manuel Locatelli oo la xiriirinaya kooxda Juventus. Qodobkaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. Manuel Locatelli ayaa qirtay xiisaha uu ku yimid Juventus oo wax lagu farxo iyadoo ku guuleystaha Euro 2020 oo u muuqdo inuu meesha ka saaro u dhaqaaqista Arsenal xagaagan. Xidiga Sassuolo ayaa soo jiitay indhaha xulkiisa xagaagan horyaalka Yurub iyadoo qaab ciyaareed cajiib ah loo soo bandhigay markii uu daboolka ka qaaday Marco Verratti. Saamiyadiisa ayaa hore u soo saaray ka hor taas iyadoo kooxaha Serie A ka dhisan ay Turin ay qorsheynayaan in ay u dhaqaaqaan, laakiin kuwa kale oo ay ku jiraan miisaaniyad culus ee Premier League ayaa ku soo biiray ugaarsiga saxiixa toddobaadyadii la soo dhaafay. Intaan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV, aniga Munax ma waxaad kaga tageena sidaas iyo nabadgelyo.